barnaamijka bandhiga axadda waxaa maanta nagu marti ah madaxweynaha jamhuuriyadda la baxday somalilan maxamed xasan ibraahim cigaal waxaan barnaamijka barnaamijkii ku soo qaadanaynaa waraysi dheer oo aan kala yeelanay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay waanwaanta dib u heshiinta ee soomaaliya ka socota waraysigan oo uu cigaal la yeeshay cabdulaahi xaaji waa qaybta koowaad waxayna ku bilaabanaysaa cigaal oo ka warramaya markii ay dowladda etoobiya isla soo qaadeen arrinta aqoonsiga somalilan annagu de arrinta horta aqoonsiga weeye meesha masalan maxay ahayday de budhigayagu aan u jeednaa waanan u sheegnay maxay ahayd dowladda etoobiya waxaanu yidhi maxay ahayd falaadhi gilgileto kaagama hadho arrinkan idinka maxay ahayday soomaali weyn markaanu doonayn ay tallaabadii u horreysay ee soomaali weyn loogu socday ay ahayd tii laanu wada qaadnay tii ku xigi lahayd ay ahayd LFD maalintii ingiriis yidhi dadkaanu warsadaynaa wixii ay rabaan baanu u yeelaynaa dadkiina markii la warsaday 86 ay yidhaaheen waxaanu doonaynaa inaan Soomaaliya raacno markaa Soomaaliya waxay joojiyeen ka hortagay idinka ayaa ahaydeen iyo Maraykan oo ay idinku soo buuxsatay oo soo samaysatay marka maantana kolba wixii aanu anagu doonaynaa diidanahay maaha waxa weeye iqliimka wuxuu maanta ku haysay arrinka Soomaaliya waxa weeye Soomaali waxa weeye the only homogeneous dadka qura ee Afrika ku nool ee midka dhaqan wada leh dhiig wada leh af wada leh diin wada leh way haddana kala irdhoogay isku daygii hore ee aan isku daynay in la isu keeno dadkaas oo mid laga dhigo maanta kii horreeyay attempt kii horreeyay ama maxay abaabulkii horreeyay waa laga fashilay oo waa laga lumay laakiin mid laga harayo maaha annaga ilmadayada kuwa iyagu ay dhalaan goor kasta ha noqotee Soomaali mar dambe tiisa soo fiirsata weeyaan haddaan rag maanta madaxay haddaan Cabdillah wareegayga aad u fiirso iyo wixii dhageysanayo rag maanta madaxay haddaanay maanta balaayo sii abuurin awaligeed la isugu iman haddaanay maanta sii dhigin sii aasin beedaynaan mahadin haddaanay sii aasin Soomaali si marun goor kasta ha noqotee dib isu soo shishata weey laakiin maanta in la kala yar nasto oo bal ay caladii iyo ciilkii iyo maxay ahayday xiisihii la kala xiisa jabay iyo bal wixii inay dhamaadaan in muddo hortu la kala nasto la kala tago waxa weeye waxaan laga maarmin marka Ethiopia haddaad tihiin idinka la idinka rabaa haddii aad maanta weliba idinkii wadankii weynaa tihiin oo maanta idinkii aanu idinka leadership idinka rabno inaa wixii madaxa qabataan falaadi gudbiyay idinkama hadhay idinkaanu idinka marsano idinka sugaynaa baanu ku nidhi walow aanu jawaab adag oo laga siinin dhowr qolul loo tilmaamay oo yidhi waa dagaasaa laga siin xigay ee maxaad arrinka halkaasi muu ka bilaabmo wariil maadeer iyagaa isu nocabe المعني وحين هذا الكلام حي فينكم كفلكم وقل فضلكم وقل وكان والمعنى يسنوا عبتا حاجة أنه الريحين عليك إذا كانوا الريحين كوضنا وعاند مدائن قروشية بضان إلى النحينه ومحايا إذا ما أنت وحنا ليمين لنوصل إلى كل غربة الحينين markaba waxaad leedahay waxa ay muuqda bidhaamo idin xambaarsan marka laga hadlayo arrinta aqoonsiga bidhaamo wax ka weyn baa muuqda guri weyn baan ka qabaa in maxay ahayday caalamku nala garto in arrinka Somaliland uu sudun u noqon karo haddii kaasi dhamaado oo annaga nala ictiraafo oo ay Somaliland degto oo dhisanto oo dawlad noqoto إلى هرتو مركا ورئيسا تلمانية مثل أنه كرتو تفك صوماليا دا انتي كالي صوماليا انتي كالي تكالي أنك أما أنت ميسي شوبنو يونايت نيشنكي يميل بك هذلين وحي لك وحينا إلى أنه كرتو أبان آنا إلى حين مانتا بدن أو مروكسن مانتا ورلئي أقول لئي محاي هيدي أي كانتي إلى أن ندوين كرتو مانتا أنه صفرين government أن ندوين كرارين كي سويتا المرحبا بنو halka dabka ka baxaya anaga danta yamaha inta halka dabka baxayana lama digi karo inaanu markaa u soo fiidano markaa kaayagii dhamaysano waxa la yidhi intii sabadar yeelatu kala ku dara maanta waa ka jeednaa anaga maanta baahan oo ka jeednaa hadii barrito anaga taayadii dhamaado waxaanu qabnaa oo filaynaa caalamka ka raadinayna inay bilowgii dawada Soomaaliyeed ay noqon doonto Soomaaliya dawadeedii inay ka bilaabmi doonto Soomaaliland oo taabagaysa waxaa jira arrimahaas oo dhan laba dhibaato oo sidii gidaar oo kala ah oo idin hortaagan
mid waxa weeye go'aankii golaha ammaanka ee jabhiyadda quruumuhu uu gaaray sanadkii 1992 ee uu yiri Soomaaliya lama kala gogoyn karayo lama kala qayban karayo arrinta kalena waxa weeye aftidii amba codbixintii aad ku ballan qaadeen in aad dadka ka qaadi doontaan si ay dadku u yeelaan amba ay u diidaan Somaliland in ay dawlad kaligeed taagan ay noqoto oo aydnaan fulin marka labada arrimood marka hore ta golaha ammaanka sideebaad u aragtaa go'aankaas golaha ammaanka warqad baanu ka qoray maalin dhaweyd aanu caalamka u qaybinay United Nations u diray maxay ahaydee jaamaca carabiya u diray oo EU ga u diray dhulka caalamka oo qaybinaanu leenahay hal kala soo arrinkii Soomaali Israaciil 60kii dhacay wuxuu ahaa talaabadii u horeeyay Soomaali weyn lagu doonay 60kii arrinkaas rag waaweyn oo dalal digool iyo maxay xayraad iyo Jomo Kenyatta iyo rag berigaas naga shaad weyn naga kaba waaweyn ayaa ku kacay caalamkii waa la baabiyay haddii 60kii wixii la diiday maanta la yeelayo annaguna haddaanu Soomaaliland nahay diyaar baanu nahay inaanu ka noqonno gooni sutaagano Soomaali weyn ka mid noqonno laakiin Soomaaliya iyo Somaliland haddii Soomaali weyn la waayay sabab ay isugu jiraan oo ay isugu jiri karaan oo aan oo maxay hayday sharci ma jirto soo garan taasaanu kaga jawaabaynaa waxaanu leenahay war Soomaali weyn fasax maanta maxay hayday Ethiopia waxay tidhi qoladii tiraha waa ka baxaynaa Ethiopia waa ka baxaynaa xaq bay u leeyihiin dastuurkooda lagu qoray marka waxaanu leeyahay Mareykan Saudi Arabia South Africa iyo Faransiis afarta dawladood ha qabteen arrinkii oo ha sameeyeen sidii lagu heli lahaa Soomaali weyn annana markaa ka mid tahay hal waayo taa hadii la waayo de sabab ay Soomaali weyn yari la yiraahdo waa muqaddas loo yiraahdo ma jirto wixii muqaddas ah waa kan laga tagay idin kana baabiyay taasoo ka qablaankeedii kaas waa kaasna kan laga jooga maxaa la idinka yeelay maxaa la idinka wali dawaari socda wala laakiin annaga doodaydi taawi tii maxay referendum kaadi weydiisayna san iyo 90kii ayaanu qoray United Nations-ka Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska aanu qoray oo aan leeyahay waxaan doonaynaa inaanu bisha May 1995 inaanu samayno referendumkii Somaliland ka samayno maxay hayday laakiin de annagu waxaanu samayno inaga hoos qaadi mayse waxaanu doonaynaa inaad soo diyaar garaysaan observerskii waxa ilaalin lahaa ee markhaati furi lahaa waana laga horjeedin intuba jawaabtoodii waxay noqotay waqtiga looma baahna haddana diyaar baanu nahay kollay anagu referendum waa samaynaynaa oo waxaanu samaynaynaa maxay aftidii dastuurka aanu samaynaynaa plebiscite ayaa dastuurka loo samaynaya isagoo u qaybsamaya wax diidan wax ogol inta vote baanu ka siinaynaa waxaanu ballan baanu qaaday muddadan iminka aniga la doortay within 2 years inaan horta axzaabtii furo laakiin waan ka horraysiinaya axzaabtii in la furo marka axzaabtii la furay ay establish noqdaan ay maxay ahayd qaynuunkeedii baarlamaanku baas gareeyo markaas dabeeto wixii ka dambeeya waxaan doonayaa inaan marka horeysa censorkii samayno dabeetana ku xigsiino aftidii maxay dastuurka loo qaadayay marka 1 year marka ay ka hadlay termkan la ii doortayna marka dabeetan sanadka u dambeeya adigu termkan la ii sanadka u dambeeyana aanu general electionkii samayno intaba waa samaynaynaa waanu u baahanahay musaacado iyo garab qabasho laakiin mas'uuliyaddaanu qaaday maaha haddii aan lacag heshaa sameeye waxaanu qaaday mas'uuliyadda laga saaray shirbeelaki waxaanu samayno marka waa samaynaynaa kulli iyo kulli xisbiyadaad soo qaaday haddii aan su'aal kaa weydiiyo ma kuwii horay u jiray baad fasaxaysaa mase kuwa cusub baa la samaynaya wallahi de waa dadka samaynayay la jirta anagu axzaabtii hore maanta ee dee noqotay maxay hayday xulfoolne wadiga Afrikiisii ka ogowe noqotay maxay hayday wax lagu hadaaqo xarunta baato inaan laba in la daayo oo taariikhdoodii SNL iyo SYL iyo USB iyo inaan maxay iyo UNUF iyo inaan kuwa koodii taariikhdoodii hore la kharibida la iska daayo meel la iska dhigo maanta wax cusub la bilaabo jecel laakiin qaynunka samayn dooneen oo sharciga baarlamaanku baas gareeyaa baa sheegi doona taano anagu proposalkan u geynayna baarlamaanka waxa weeye inaanu xisbigaasi diin
حزبي كو هذا يديتي ولا مدلي أي أنا نقولن حزب الدين كو الدين بقى هذا يا الدين بقى نتكلم يعني وضلت أنا لقى شيء الحزب كشيء كلام ما تيرو دينتي ولا مدلي يعني حزب إقليم قرى في جن قرى كسر أنا وحين وعلى الأقل هدي وحزبي ناشونال بارتي هدو كم عابي وينو ويران صدح شنتي بقبل أما لحدي قبل أفر كملة وإنه كفر هذا وكحزب كيهي شو عين كاسة ونور مربع دويني أنا وصمينه لكن دتك الحزب كاسة ما يصير يصير كله إيجا حروة marka roobaad imika joogtaa yaad iska aragteen magaalada Roma dawladda Talyaaniga magaalada Roma wasaaradda khaarijiga ayaan raggeedii badankeedii is wada aragnay waxa maxay ahayd imika chairman ka ah IGATIO Importers Forum waxa ka chairmana ninka la yiraahdo Senator Seri Talyaaniga wasaaradda khaarijiga ka maxay ahayd number 2 ka marka ninkaas horta la waday oo aan dhowr jeer is aragnay شريته أيها final meeting كي أنه working out أنه وزارة خارجية دحين كسر ما ينلي أو أنه كل ما يسلي في عم بين لو بدمار. ما حد كون هذا الشيء أنت أفونسي جميع أنا. ما هي أفونسي كمان هو هذا الترياني نك الترياني هذا الكيسي وكفري أو أنه مركي هرب أنه كسر عني يصير مصاص على الرأس في دون سنة أي كبرت هاي كلامه هذين وحيدا هي لغو وحنو حتى الترياني نحي Soomaaliya waa Soomaaliya waxaana idinka iyo wada jirkiina ama kala go'naa wax Soomaaliya hadaatiin idinka dhaxeeyo weeye waxaanu maanta idin qaabilay idinkuna yeednay waxa weeye inaad timaadaan idinku ogolaanay waxay tahay warow dhowr meelood laga soo qayliyay oo la yiri maxay nimankaas u yimaadeen meesha oo aan taageerowsanna أيوة بدنا ويالين Soomaali baa ka soo qaylisay Soomaali baa taarar baa loo yimi baa wasiirku igu moodey wasaaradda ka shaqeeya ay ku yiri taarar badan baa looga yimi dhul badan Addis Ababa xamar Kismaayo looga yimi leeyahay nimankaas hadii aad qabtaan waxa kala gooynaysa Soomaali marka Roma xilgooni walaashay ma jirto Roma Soomaali oo dhammayna saaxiibtay anagu kala gooyntiina shaqo kuma dambeeyay ma leeyahay هذا الطلياني إذا كلا جودان متشابهين كمان لكن هذا كذي كده حلوة أنا واحد ما تعرف كوهينا واحد تاني بلكي Soomaaliya أيب كمده أو شقاري دي بسطي أو ديتسي أو نبض أروستي أو administration بستي أو ما أنت دياروه إلى reconstruction يعني demolish يوم هيدا development لقاله يودي بفرن مريو والديارة أيان وحلا قبلين سافر وحجول قبلينا ماشي كلا Soomaaliya سيرو كلا ديتسي ماشي ريدي ديتسي administration effective ديستا نفس الأكبر نوق أيان وحلا قبلينا marka sidaas aan raali ku noqonay oo aanu kula qabsanayna ayo hadii alla yiri ay inay nagu garab qabtaan iqtisaadiyan iyo maaliyan baynu garab qabtaan raali kaga nahay kuna aqoon madaxweyne xiriirka Talyaaniga iyo Somaliland marnaba aad uma fiicnay inta aan ka xusuusanahay marka hadalkii aad la yeelatay wada hadalladii aad la yeelatay nimankaas madaxda ee Talyaaniga maxaa kaaga baxay ma waxbay ogol yihiin ما waxay doonayeen inay ra'yigaaga maqlaan waxa weeye Cabdullaahi nimanka aad baa loogu diray nimanka ka taararka u soo diraya ayaa hore waxay uga raadsadeen arrimada sababta aan u goosanay waqooyi u goostay waxa kamid ah ugu weyn bayran kultura Italiana dhaqanka Talyaaniga ee aan qabno leenahay ayay diidayaan oo ka yaacayaan arrimada markaas Talyaaniga loogu diray saasay ahayd niman dhowr nin oo ambassador oo meesha iska bedelayna oo nin maxay ahayd Mario si kaloolin jiray uu horeeyayna ahadigi Yunasom ay rainkeedii la qabsadeen oo aad iyo aad baa looga warxumeeyay dadkii Talyaaniga iyo dawladihiisiiba marka bari dhaweyd ayaa Talyaaniga hargeysay ugu yimi waxay waanu waa ka saarno waxaan waxa wax ka jira ma jiraan annagu hadii aan reer waqooyinahay hadii aanu meeshii ku noqonnana oo arrinka iyagii markaa nimankii wada hadallo wax daweeya ka soo baxaan waxaanu ku goolay waa
dal wanaagsan oo saaxiibtihiin baa ka dhalanaya hadday suurageli weydaan laba dal oo yaryar oo labadaba saaxiib tihiin baa meeshii ka dhalanaya annagu haddaan reer waqooyi nahay xunaan inoo horraysay ma jirin nama idin isticmaalsan annagoo xora ayaynu isbarannay halkaasaan nimina waxaana laga sugaayey oo rag talyaani oo annaga inaanu meesha nimaadno aan raalli ka ahayn arrinka iyagu inuu fula inaanu maxay wax qabsan aan iyaguna ka raalli ahayn waxay sii geliyeen siyaasad inaanu markaanu nimaadaba leenahay ictiraafa jamhuuriyadda somaliland haddaanu nahay ictiraaf kiina waan dhulkaan loo dhigno waxaanu nidhi annagu maanta waxaanu doonaynaa inaad noo aragtaan oo noo aqbalshaan inaanu nahay dal autonomous ah oo dantiisii ka adkaaday dadkiisiina xukun wanaagsan u sameeyey oo isku xidhan yihiin marka sidaas idinkoo noo aqbalay inaanu nahay nacaawiyo wax lagala qabto maanta waxa qulehee na hortaagani wuxuu yahay awood maaliyadeed oo aanan haynin oo aanu ka baqayno haddii aanan dhaqso u helin kaalmona ama wixii aanu ku soo dadaalnay iyo ku soo taxabnay aanu qabanay inay naga murkucdaan aanu ka baqayno sida waa naga aqbaleen nimankii talyaaniga lama aanu gelin ictiraaf lama aanu wixii muran keeni lahaay oo dhan waa dhaafno waa dhignay marka xagga dhaqaalaha ayaad wax ka filaysaa miyaa xagga dhaqaalahaanu filaynaa wafdi baa xagga imanaya aanu kasoo asgaray annaguna memorandum baanu u dhiibnay waxay aanu ka filaynay waxay aanu ka doonaynay roo mar lama wada dhiso annaguna baahida iyadu way fara badan tahay marka waxaan wada doonayno maalin idin wada weydiin mayne ee waxa maanta aanan ka maarmin maxay ahayd horta marka u horeysa budgetary assistance si aanu administrationkii wuxuu laga doonayaa waxa la yidhaaho shinnidii wax lagu beeraa beertii ma baxda haddaan shinni loo haynin administrationkiina ma dhaqaaqayo haddaanu shinniyaysnayno ninkii barasaabka ahaa dee baabuur buu rabaa oo wuxuu rabaa taas oo wuxuu rabaa maxaa yidhi xafiis oo wuxuu rabaa laba kasaani oo la shaqeeya initial investmentkaasoo dee marka u horeysa beertii la beerayay shinnidii ka dhigan waxaanu u baahan nahay markaa budgetary assistant waxaanu u baahan nahay dagaallo badan baa meesha ka dhacay agoon badan ayaanu haynaa meeshii waxay aa odhan jirteen orphanotrophy inaad noo furtaan laba mid bariya iyo mid galbeeda oo aanu bal dadkaas waxaana ku baro kula dhaqaalayno oo aan noo furtaan dhakhtaradii cusbitaaladii inaad maxay ahayd dib loola dhistaan intaa waxaanu weydiisanay dawladdu inay directly iyadu noo qabato waxaan kaloo ugu daray markaa memorandumka dhowr project oo aanu leenahay dad maalqabeen talyaaniya noo doona oo noo soo shajiciya oo ha fuliyeen mashaariic kii sibirkii berbera mid ah electrificationkii regional headquarters oo Hargeysa caasimadii laga bilaabo iyo mashruucii tog wajaale ee beerta in laga beero sarreen dabeetana daqiiq laga dhigo oo labaduba ay yihiin mid laga macaashi karo oo maxay ahayd isbixinaysa kuwa iyaga waxaanu nidhi maalqabeen industrialist dad maalqabeen talyaaniya noo soo shajiciya oo noo soo abaabula oo hanoo yimaadeen oo hanoo qabteen intaasaanu maanta usii dhiibnay wafdigaasina wuu noo imanaya oo xag buu imanaya waxaan filayaa inay arrimada badankood ay la aqbalay ayaa anigu u qaataa u qaba wuxuu ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal oo u waramayay cabdullaahi xaaji dhegeystayaal qaybta labaad ee waraysigan qotada dheer waxaad maqli kartaan caawa warka dabadii qaybta labaad ahna qaybta ugu dambaysa ee waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland maxamed xaaji ibraahim cigaal afayeen jaamacadda carabta u hadlay ayaa ugu baaqay cigaal inuu ka qayb galo shirka baydhabo kadibna waxa baaqas ku gacan sayray afayeenka cigaal cabdi idris ducaale oo sheegay in jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland aysan ka qayb gali doonin shirka baydhabo cabdullaahi xaaji ayaa markaa maxamed xaaji ibraahim cigaal weydiiyey in cabdi idris uu isaga magaciisa ku hadlayay markii uu diidmadan bixinayay
وحقول يا سيد بكا وعبد إدريس بحيي شركي أنه لفديني وزارة خارج كفديني أي رجع كلها وينجسوا هالشيدين أيوك آخرين كمدي أو يروارن كان أفكينه معانين يا بروحة وأفكين كيس ينفو حضلي أن يدين أخرينه marka waa ka doodnay meesha horta waxa weeye nimankii masaarida ahaa waxaad moodaa inay ka baqayaan annagoo u ducaynayna inay najaax ka gaaraan baydhaba haddii ay wax ka hagaagayaan waxa hagaagaa waxa annaga noo hagaagayaan nuu arkayno oo aanaan kana xaasidaynin kana xumayn in shirka baydhaba markii horena kii boosaasan u ducaynaynay haddana ka baydhaba inuu hirgalo oo najaax gaadho waxay u ducaynayaan nahay waayo dadka wuxuu hagaagayaan ayaanu ka mid nahay laakiin maca alasaf nimankii masaarida ahaa waxaad moodaa iyagoo ka yar hunguri gaaban inay scapegoats baadi doonayaan ay goordhow eedda saaraan oo yiraan wixii waa halkaasay ku hagaagi weyday hebel baale marka annaga haddaanu nahay somaliland waxaanu igaad isla afgaranay oo shirkii boosaasona lagu hareeyey oo ku habaysnaa in annagu maadaama aan maanta SSDF hadday tahay iyo UNC hadday tahay iyo haddii ay kooxaha kale mid ay tahayba midna xumaan noo dhaxaysaana laga heshiisiiyaa ma jirto haddaanu nahay annagu reer somaliland haddii aan la lahayn heshiisiinta wax ka gabo kaale nala heshiisiiya nimanka haddaan la lahayn annaga wax looga banaani ma jiro marka waxay eegaad goosatay in arrinkii Soomaaliya laba meelood loo qaybiyay marka hore kooxihii koonfureed la heshiisiiyo marka iyagii heshiisoo soo saaray wax committee dhexe ama dawlad dhexe ama central authority wax kasta lagu magacaabay waxay soo saareen dabeetana annagii iyo iyagii nala dhex galo oo arrinka iyagii mediation wixii loola jiray yani isu soo loogu dhex galo sidaas igaad ku heshiisay masaariix xumaan uma qabno waa iyaga yidhi xoog baanu ku keenaynaa Somaliland bal la arki doone dee markii xoog lagu keenaan la arki doone annaga xoog ma baahina lagu geeyo waalayaal laga wada hadlayna laakiin maanta annaga shirkaas waxba yaani lala marmarinin aanan qabin ma aanu ku jirno meel looga banaani ma jirto haddii aan anigu Hargeysa joogo abdi sidoo hadlay si kala aanu qori lahaa laakiin magaca dawladdu ku hadlay rag madaxweyne ku xigeenkii iyo raggii kale ee dawladda aan waa joogeen waana la ogolo sidaas aan la ogolahay heshiisiinta cidna la heshiisiina ma jiro cali mahdi waa saaxiibkay ina caydid waa abihi baan saaxiibahay maxay Cabdullaahi Yuusuf waa maxay hayday raggii aanu barigii wax wada qabsanay intiqaabkii wada helay ma wax cidna la heshiisiinaya ma jirto anagu iyo Hargeysa maxay bay noo yimaadaan shalay nala joogeen raggaas aad sheegaysaa oo dhan marka way noogu yimaadeen Hargeysa marti sharaf leh loo ahaay marka anaga waxa lagu heshiisinayaa arrinkii dhahay ka ridaysa masra waxaanay ogeyn bay galaysaa annagu baydhaba meel ma yani ma tegayno xumaan baanaan u tegayn maaha we have no role meel looga banaani kaalid looga banaani baydhaba haddaan la siinaynin kaali aanu heshiisiinta wax kaga galo annagu wax ka heshiisiino dadka meel kale looga banaani ma jirto Cabdilaahi haatan kahor adiga qudhadaadu mar aad arrintaa ka hadashay masaarida iyo shirka qaahiro lagu qabtay ee Soomaalida si xoog leh ayaad u cambaaraysay masaarida waliba waxa aad tiri waxa ay aftuuftay Masar shirkaas marka haddii arrintu wali halka ay idinka taagan tahay sidee baa looga gudbi karayaa ismarisla-aantan taagan waxaan ku leeyahay anigu Masar waanu ka aamusnay kulliga iyo talo aanu council of ministers kaga gaadnay baanu kaga aamusnay arrinka Masar inaanaan annagu ku eedoobin oo hadduu meel marana aanan libtiisa waxba ka hunguraynin haddii uu ka baxo haddii uu meel mari waayo oo uu fashilana aanan eediisa wax ku yeelan baanu annagu dawlad ahaan annagoo shirayna ku qaadanay markaanu soo qaadnay Cabdilaahi arrinka Masar waxa weeye markii wasaarada khaarijiya Masar laga sheegay inay tiri haddaa ku heshiisaan baydhaba oo ay Somaliland madaxa taagto annaga soo garaacayno bilqasab ku keenayna oo idinka hubaynayna oo kharashka bixinayno markay sidaa yidhaaheen baan anagu hadalnay taas aad leedahay maxay hayday kelmadda waxay taagin kula Addis Ababa ka soo baxday annagu waa xigtay in ay processkii oo socda oo ay igaad soo waday oo socda oo
boosaaso loo ballansan yahay inay uun shir dhexda ka fadkudisay oo shir ka qabatay maxay hayday Masar Qaahira waxa iqliimkoo dhammi wuxuu ku naxay bay hay waxaa diyaar u nahay haddaan nahay Somaliland in aanu marti gelino Soomaalida oo ay hadday doonayaan 5 bilood ay fadhiyaan Hargeysa oo ay marti idin ahaadaan si ay uga gungaaraan dhibaatooyinka dhex yaala oo heshiis loo gaari lahaa dhinacna waxaad ka leedahay shirka baydhabo uma socono marka aad marti qaadayso Soomaalidu inay Hargeysa yimaadaan macnuhu waxa weeye adigu marti gelin oo baad samaynaysaa kama qayb gelisid shirkaas anagu kuwa xasiisinayo isu jiidayaanu nahay baydhabo hadii looga yeero la ka qayb galo igadna waa u sheegnay United Nations-kana waa u sheegnay anagu role la yiraaho dadka waxa ka heshiisiinta wala hadii laga siiyo role waa gelina baan laakiin kan kale waxa leeyahay la heshiisiinaya anagu wax dalaayana dadka la ma jiro odan islaynayna xabadi laga dhaxsocota ma jirto jirka Hargeysana isku mid ma aha waxay tahay inaad si yar Cabdilaahi inta waan kaaga yahan weynahay waad isiinaysaa waxa weeye shirkaanu anagu u yeerinaa waxa weeye shirbeeleed anagu warlord isu yeerimayno waxaan leenahay Soomaaliya wadadii aanu anagu ku liibaanay oo qurabay ku liibaani karaan iyana marka hal laga gudbo ilaa 7 sano wixii la waday kooxaha loo yeero laga gudbo dadka laftiisa la heshiisiyo beeri hay yimaadeen wadaadkoodii iyo sheekhoodii iyo iimaankoodii iyo boqorkoodii iyo maxay hayday dadka iyo intellectualkoodii iyo hal yimaado shirbeeleed aan qabanno dad waliba ay rabaan soo dirto marka sidii aan u fadhinay intay doonaan hafadiyeen hakbaraan degeen labadii isqabataba gooni inta la shirka la joojiyo labadii maxay ahayd hadalka duulaba dibadda hal isugu geeyo si aan u wadnay aan wadadii aan mahay ayaan u tilmaamaynaa waana laga dhab 7 sano ayaa la waday dad ajnabiyin baana waday oo Soomaali ahayn واربلا ميسي حولا ديجي كم قيها يوان معايا هيدي سيدا الله يسطن قلي ملاتا إنه يسقطن قلي إنه عن رجي وحودي أنا يودن قلي من بعض الإسلام مركا وإسكت يدون قوري إنه قطوبين أنه بالمرأة نقوله إسكت يدون أنه معايا هيدي دحقل شيسين سمينه وإسكت يدون إذا كفولدي إنه دجال سكية أو ديك فضل كده عطي أيات صور مرتين dagaaladii waad u guntateen waxbaad ka qabatay waad daweysay emerka beelihii dagaalamayay ma isu wada calool fayow yihiin haddii aad si kooban arrintaa uga jawaabto waxaan leeyahay maxay hayday sidii aad dagaalba filayso horta meesha ilaa 1000 qof nin baa ku dhintay magaalo dhan baa baaba'day oo magaalo madaxdii labaad ee dalka ahayd maxay hayday daano badan iyo duuniyo badan ayaa baxday waxaasi ma ka tagi waayi karaan xoogaa maxay hayday dadka ay badanine wax yaro hiirtaanyo ku jirto lama waayi karo laakiin dadka badankiisii madaxdiisii maxay hayday aqoontiisii dumarkii oo badan waliba iyagu kuwa ku dhimanaya maanta nabadda waxa weeye waxa dad isu niyasan oo alxamdulillah maanta isku wada baroorto isku bururay markii ay isu yimaadeen wixii kala maqnaa ayaan qabaa meel walba waxaan la taaganahay maxay hayday abaal hal noqoto ama ha noqoto mid walba inaanu doono waxaanu dalkii ku daweyno markii dagaaladu meesha kulul ay marayeen hadal baad jeedisay annaguna halka ka sii daynay waxaad tii arrintan dagaalka waxaan ku dadaalayaa in aan maslaxad iyo xal iyo wada hadal iyo sabaale aan ku daweeyo haddii ay suuroobi weydo xoog baan ku daweynayaa haddii ay suuroobi weydo xoolo iyo lacag baan ku daweynaya marka dhibaatooyinkii dagaalka sokeeye maxaad ku daweysay teebaad ku daweysay intaasoo arrimood wallahi waxa doonigaas ma xusuusin waa iska hadal badnahayo ma wada xusuusto waxa weeye waxaan ku daweynay kaligeena ma daweyne dad baa rag baa ila guntaday oo maanta libta badankeeda iyagu leh waxaan ku daweynay waxa weeye billati xasan وعظهم بالتي هي أحسن في أرجي النبي ولاهي كوير النبيسي أيام كده ويني تدفضل أو معايا إذا ما رجل جوه ريبة عالم أي وطن
fadqalala badan geliyey oo ay halhayskoodu ahaan jiray halla iscabiidiyo halla ismuquuniyo halla kala adkaado waxaanu ku bedelnay halla walaaloobo halla wada dego wixii la isu yahay wixii naga maqan laga fuur yeelo waxaasaanu ku daweynay maxay ahayd xoog waa kaga daray laakiin ma ahayn xoogga burco laguma kala adkaanin kuwa gataati dhacnay iyana xaggaasay u gataati dhaceen oo waa daaleen annana waa daalno xaggaan u gataati dhacnay annaga oo labadayadii qoloboorkii intaan iska sulimaryaaneen waxaynu isku leynayni ayaanu isula nimi ilaahay waa la daweeyey dawa xagga ilaahay ka soo degtay ayay ayday ku dhintay waxaan in loo taliyo dabeetana raggaasaa tashaday nabadii shaqay dabeet marka nabadii timid laakiin intii dagaaladu ay keeneen weli waa taagan tahay waxaa ka mid ah murkucasho weyn oo dhaqaalaha gaadhay shaqo la'aan jirta dad fara badan oo waxyeello ay ka soo gaadhay dagaalada qaar ku curyaamay marka dagaalkaas oo kale sidee baad diyaar ugu tihiin mase hanan karaysaan inaad wax ka qabataan waxay aanu ka qaban karno cabdi aanu ilaamka waa ka qabanay waxaa yani wax ka uhimaan dhawey xafiiska yani indhahaygan ayaan hubaa ilma ka timi inay soo galeen rag halkaa tuuba ku jirto oo kaadidii xaalkii ay ka socdaan tuubadaas oo raggii waasha wax ku gaadhayna waa raggaanu maanta u soconay aluuqaynaanu leenahay maxay ahayday halkaa cusbitaalka ha loogu sameeyo meel wax loogu qabta ha looga dhiso ama awood aan loo helno dabad kusoo daweyno ha noqotee dee raggaasoo dadkaasoo kale iyo qaar lamid oo kaloo iyaguna yani wax beelay gacanyahay ka baxday xoogaagii hayaysay ka baxdo shalay hodan ahaa maantana cayda intaasoo dhammi waxay u baahan tahay garab qabashay u baahan tahay haddii la waayo garab qabashadaana dadku isku mid maaha ee mid samraana waa jiraya laakiin waxaa inta badani waarbelaydu maxaa jiraba yani xoogaa ومفعشة أن كل شيء واتاس في هوري لقى بحضي دقالة أن وحكو كبصر لهين في دقال أن محبك يني لقى بحضي وحن لقى سيد درنت ما أنت هذي يوم ركعتو أن ما أنت تاوح كما كريوينه مركوار كانوا عالم كجالسين إنا وأنو كرسوا عنا وأنو فينا إنا هنا أنو هدي الله يري وحلا قرب خبصو هي مساعدة madaxweyne dadku way isxantaaneen marka lagu xamanayo waxa la yiraahaa qaar waxay yiraahaan maxamed ibraahim xigaal waa nin waaya araga waa nin siyaasiya waa nin bisil waa nin daacada laakiin waxoogaa uu yara gacan ku leeyahay xagga maaragtay kalisnimada ayaa ku jirta oo wasiiro badan buu eriyaa dadkoo dhan iyo cali ma garanaysaa aad buu u carab badan yahay sidee baad soo aragtaa adigu عبد الله يرد وعوي المدح نقض أو معايا هيدا ير مرمر ما تجرو عالم كما تجرو لكن وحن كلي تلية نين يقفوا مدحوا كلي تلية وكفوا وحن أبان وكان كلي تلية وحن كلي تلية وكان لنا نسكوك الصونين أو أن مرمي كريم أو أن أرنكي سبضات كل ما يسن كريم دون يين وأفضل كل ما يصايان وأركا أبان وأركا تلية شيء معاي هيدا وسألنا والله ده رجي ماشي أكتجينا وحكاية يوم الدولة لكن أنا كقدر برنامج كريم بدها مرات كقار كوتشي بسيادتك كلها الله يسوى وحا كمدها مرأة تري haddii koonfurtu ay heshiiso oo dhibaatooyinka jira ay wax ka qabtaan annaguna markaa diyaar waxaanu u nahay inaanu yeelano xiriir weyn oo xagga lacagta iyo xagga dhaqaalaha aanu mid iskaga noqono sida arrimuhu ay u socdaan haddii heshiis la gaaro nidaamkii federaalka ayaa doonaysaan inaad soo celisaan oo haatan ka hor cabdiraxmaan tuur iyo rag kale ay ku taliyeen waxaa maanta waxa ay anagu reer waqooyi haddaan nahay waxaanu tirsanaynaa eed badan oo reer koonfureed mid naga gacantiisu naga fayowda ayaanay jirin maalin walba waxaanu soo qufaynaa xasuuqii iyo aaskii iyo wixii baanu soo qufaynaa oo kii ay gaadhayna ay gaadho ku bukaa kii aanay gaadhinina u hiirinayaa kay gaadhay oo ku bukaa isaguna waxaan leeyahay nimankii waa wada hadlaynaa waxii aanu ku wada hadlayna wixii ka soo bixi doona annagu siraaca siduu u jiri jiray uma rabno mana ka qayb gelayno waxaanu aragnaa inay danta soomaaliyeed maanta tahay in la kala nasto oo
iyana halkooda maxay ahayd waxay ay ka dhisan karaan ka dhistaan anaan halkayga waxaanu ka dhisan karno laba dawladood oo wanaagsan oo walaala la noqdo wixii markaa xiriir la yeelan karo maxay passport maxay common currency waxay xiriir ay ka dhisan karaan ka dhistaan anaan federaalka ayaa doonaysaan inaad soo celisaan oo haatan ka hor cabdiraxmaan tuur iyo rag kale ay ku taliyeen waxa weeye maanta waxa ay anagu reer waqooyi haddaan nahay waxaanu tirsanaynaa eed badan oo reer koonfureed mid naga gacantiisu naga fayowda ayaanay jirin maalin walba waxaanu soo qufaynaa hasuuqii iyo aaskii iyo wixii laanu soo qufaynaa oo kii ay gaadhayna ay gaadho ku bukaa kii aanay gaadhinina u hiirinayaa kay gaadhay oo ku bukaa isaguna waxaan leeyahay nimankii waa wada hadlaynaa waxii aanu ku wada hadlayna wixii ka soo bixi doona annagu saaca siduu u jiri jiray uma rabno mana ka qayb gelayno waxaanu aragnaa inay danta soomaaliyeed maanta tahay in la kala nasto oo iyana halkooda maxay ahayd waxay ay ka dhisan karaan ka dhistaan anaan halkayga waxaanu ka dhisan karno laba dawladood oo wanaagsan oo walaala la noqdo wixii markaa xiriir la yeelan karo maxay passport maxay common currency waxay xiriir la yeelan karo Europe oo dhan baa maanta maxay ahayd isu wada furtay oo maanta baad oo xiriir dhaqaale oo wanaagsan oo caqliga gal laakiin ragaan ogahay ay dawacadi yeesho intay walaasheena ogahay ma guuro marka waxaan leeyahay haddaan ragaan ogahay أنا يقول من أي وحول ولا شرين ماشي وحلو وضي لها أنا الباب أنا جدار كده يصير البابين سواء البابين وحلا وحبضنا الصومالي وذا قرصن كتابات يروح كسر كيتها مركب وقت جيدا ما كان الله ولا حظوظ والوحل اللي يسولي ما أدو هذا أيها حوالي شعر دونا سؤال قابل كاوي الدين يا arrin uu sheegay wasiirkaaga arrimaha guduhu dhawaan oo uu ku sheegay in maraakiib laga leeyahay waddanka Shiina aad u ogolaateen in ay ka kalluumaystaan xeebaha baddiina marka dad badan oo Soomaaliya oo dalkaaga ayaa ku nool kalluumaysiga maraakiibtana sida la sheego waxa ay sitaan shabakado waaweyn oo kalluunkii oo dhan markii xaabsanaya maxaa taa u ogolaateen والله أرنكا وحوي يورتو أنكو ده واحد شري معي كونفنشن باجرا معي هيدي قلادة وزارة كلوميسيغا يورتو معي وزارة داخلية مع الأسف يعني هذيك أنكو تكحون أرنتاس واحد نودعين الرابسي وكالاركين والله مو وكالات مبسكريين أنكو هو كسر مغلار رمضان هو يعيد وكفكري صفحة لوكال صدو اللي يراهو دراج نت la jiido dhulka la jiiday kalluun oo dhan mid yar mid weyn mid aan la rabin mid la rabay waxaba soo jiida badii very dangerous ka caalamku xaaraantimeeyay waxa weeyaan ayaa laga kalluunsadaa la yiri arrimadan Talyaaniga la soo qaadnay bay kamid ahayd in la siiyo inta maanta la og yahay waa ta u weyn kalluunka meesha galvaydan bar baana leenahay sidaanu perfect garayn lahayn horto inay wax nagala qabtaan dabeetana sidaanu uga faa'iideysan lahaynayana ay dad industrial ah oo Talyaaniga loo soo diraan oo nagala shaqaysan meeshii marka arrinka kalluunkaas dhowr iyo 20 doonyood oo maxay ahayd rag Soomaaliyeed leeyihiin baa meesha ka kalluunsada annagu برنامج وده وحوي نمكة تعيش كأي نمكة محي هيدي كوريا أنا هم ماشي إلى مادة إلى أن نكلفنا إلى يكون كيب سدان كلونك يعني يجو كمسيو كوني وده يكف الله ويا ينسيان ميان أريك هذا نوع يريه ولي حدي عن نقطة حدي الله يري وحن طبعا بالوزارات كده وكل وزارة شيء يقول دي سان سكوروا ينكروا يعني سكوروا يا حدي الله يري waraysigan oo Cabdullaahi Xaaji la yeeshay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal inta ay ku eegyahay